degmada Geedbalaar Daawud Maxamuud Cawaale ayaa maanta deeqdi raashinka ahayd ee dawladda Sacuudiga ay ugu deeqday dadkii ay abaaruhu saameeyeen gobolkaasi Gabiley si habsamiye ugu qaybiyay qoysas tiradoodu dhannayd 584 qoys oo kala degan 15 tuulo oo hoos yimaada degmada Geedbalaar. Gudoomiyaha degmada Geedbalaar Daawud Awyoome ayaa ku wareejiyay deeqdi raashinka ahayd xiltuulayaasha degmooyinka 15 tuulo ka kooban ee wadnaaqoyska hadalladooda kamid ah ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ugu horeyn Ilaahay isla markaana sidoo kale mahadnaq ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Sacuudiga ee deeqdaasi raashinka ugu deeqday maamulka gobolka Gabiley iyo gudoomiyaha degmada Geedbalaar oo ay sheegeen in sidii loo baahnaa ugu qaybiyay raashinkaasi isla markaasina ay ka gudoomeen waxaana mas'uuliyiinta hadalladooda kamid ahaa waa magaalo odax oo ka tirsan degmada Geedbalaar waxaan maanta hayr tuuleega ku wareejinay 48 qoys raashinkood oo ka kooban bariis, daqiiq, sonkor, caano, sharaab iyo timir. hayr tuulaha ayaan ku wareejinay waxaana goobjoog ka xubin kamida guddiga abaaraha heer gobol Xuseen Xasan waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii oo suurta geliyay inay soo gaaraan macaawinooyinkan باقي وشيدي قد جاء عبارة قرني وسميه آديات بنوجه مهد علي هذانا قدومي دقمة Geedbalaar يمكن واحد شو تولد القضاء وحياة سنة لا قاشة من مجال حيد إلا أن Geedbalaar هالك كاريو هذا أساسه كوجود يشين يمكن واحد نشوفنا قوبته نشوفنا ومجال قاشامو وحيلة شوجه هاي توليه قاشامو واحد كور يشين يراشين معاونة ذاها الدولة قرودين كيا أحمد محمود سيلاي وصدرين ضدك أباريسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. هل كان نشوفنا ما أنت وحوي مقالة واضح بالله وحكوت هلا قدو برتقيس سو سلام قدو برتقيس كسالة waxay ka tirsan tahay degmada Geedbalaar bay ka tirsan tahay aniga iyo gudoomiyuhu waxaan u keenay oo ku wareejinaynaa raashin uu sidoo idinku sheegay gudoomiyaha degmada Geedbalaar ayaa raashinkaasi oo inooga yimid macaawinooyinkii uu madaxweynuhu ugu dhawaaqay sanadkii awalkiisii loogu dhawaaqay ay ku soo gaadhay abaarihii loogu dhawaaqay baa intaas maanta inaga soo gaadhay. bismillaahir rahmaanir rahiim waa si wanaagsan anigoo gudoomiyaha heer tuulihii magaalo qodaxa waxaanu gudoonay macaawinada dawladdu ay nooga sidaan gudoomiyaha Daawud Yoome marka waan ku mahadcelinayo. Assalaamu calaykum taakuleynta iyo caawida noo keentay idinka iyo gudoomiyihiina shanta farood iyo alxamdulillah ala cabooyinka gudo ilaahayna haynoo saayidiyo maxay idin soo gaadhay adnood keenteen deeqda aad iyo aad loogu baahnaa marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa maadaama oo aad markaa magaranta madaxweynaha Soomaaliland maxamed axmed siiraani aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Cabdi Cabdilaahi Daahir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gabiley.